السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دوادا تلفزيونka midnimo oo saacadan oo kala aad kala socotaan aalada Omna Kanalan oo aad ka daawataan magaalada Gothenburg ee xarunta labaad waddanka Sweden iyo waliba nawaaxigeeda. barnaamijyo xiiso badan ayaanu toddobaadkan idin haynaa laakiin marka hore aan ku furfurano warkii naga soo gaaray daafaha waddanka Sweden oo aad ayaad u mahadsantahay Ibrahim daawadayaal saaxiibayaal haatan ku soo dhawaada qodobada telefishinka midnimo TV oo idin hayo ay kamid yihiin ururka Social Research for Faltering oo soo qaban qaabiyay dood cilmiyeed quseeya arrimaha bulshada ee 2015 lagu hagi doono magaalada Göteborg. Dawladda Sweden oo masaafurinaysa gabar Soomaaliyeed oo 15 jir ah. Hanaanka waxbarasho ee luqadda SFiga oo wax laga bedelayo. mid ka mid ah dhalinyarada iskuulaadka Göteborg wax ka dhigto oo ka hadlay dhibaatada haysata ardayda aan wali si dhamaysan waxbarashadooda. Dawladda Sweden oo xoojinaysa ka hortagga xagjirnimada ee dalkan. qodobadaas iyo kuwa kale oo badan ayaa daawadayaal daawan doontaan haatan ku soo dhawaada ayagii oo fidsan. ururka Social Research for Faltering oo soo qaban qaabiyay dood cilmiyeed quseeya arrimaha bulshada ee 2015 lagu hagi doono magaalada Göteborg. ururka ugu weyn isla markaana gacan qabta ururada ka jira magaalada Göteborg ayaa si weyn u soo qeeyay sharci cilmi kororsi ah kaasoo quseeya qaabka uu noqonayo isdhexgalka bulshada la firan kara sanadka 2015 ee magaalada Göteborg u baahan tahay. boqolaal qof ayaa kala metelaya ururada deegaha ka qaata ururkan ayaa iyagu dood cilmiyeed ka yeeshay baahiyaha isdhexgal ee Göteborg u baahan tahay taasoo keentay in baahiyo badan aad loogu baahnayo ururadan ka soo qayb galay dood cilmiyeedka isku raacaan. Lena Salo madaxa deeqaha u qaabilsan ururka isla markaana iyadu soo qaban qaabisay dood cilmiyeedka ayaa TV-ga midnimo waxay faahfaahin ka siisay waxyaalihii uu ku saabsanaa shirkaasi. Hej, jag heter Lena Salo och jobbar på social resursförvaltning med stöd till social ekonomi. Och ikväll har vi ordnat ett samråd för de organisationer som jobbar inom integrationsområdet för att höra efter vilka behov som de ser hos sina deltagare eller föreningsmedlemmar framöver inför 2015 och även framåt 2016. Så ikväll har vi genomfört den så kallade operan och där det kommer att vara vägledande i våra prioriteringar när det gäller ansökningar som kommer att komma in nu, och det tror jag det börjar ramla in ganska många redan nu och det kommer att komma fler, och då ska vi ta hänsyn till det som har sagts här ikväll, att det får vara lite styrande och vägledande för oss. Vi jobbar inte så nära grupperna utan vi träffar oftast bara företrädare för grupperna. Det här var en första början och jag tror att vi kommer att använda den här metoden framöver och samla ihop kanske om ett år igen för att höra, märkte ni av någonting av den prioriteringen som förvaltningen eller som vi har gjort? I så fall på vilket sätt? Och vi kommer också skriva en liten rapport bakåt i tiden här, vad som har hänt mellan 2008 och 2014, vilka organisationer som fick bidrag och hur det ser ut och till vem gick bidraget. Och jag kan bara nämna kort så här att det var ungefär 154 ansökningar eller projekt som blev beviljade till ungefär 55 organisationer med 43 miljoner kronor. ayadoo sidoo kalena xubno ka socda isla ururka Social Research for Faltering oo ururka soo qaban qaabiyay barnaamijkan ay halkaas ka hadleen. Jag heter Maria Lundgren Delgran och arbetar på social resursförvaltning, och idag så har jag varit med och hållit i en process som heter Opera på uppdrag av föreningsstöd hos oss, och den här processen har handlat om vilka behov ser vi alla som är här inom integrationsområdet 2015? Och då har man fått prata i par, i grupper och tagit fram idéer och rangordnat dem. Och då blev det här resultatet att de behov man såg, det var mänskliga rättigheter, bildning och utbildning, resurser,
social och ekonomisk hållbarhet, mötesplatser och social trygghet. Och det kommer att ligga till grund för när man ska söka pengar det här året. Kommer det vara de här sakerna som är viktiga i ansökningarna. Så jag hoppas att alla föreningar söker mycket pengar nu och lycka till med det. حقيقي الشركة wuxuu xabaarsanaa magac oo isdhaxgal maadaama ciwaankiisu isdhaxgalka ahaa ummadda Soomaaliyeedna qayb inay ka noqoto ayaan rajeynayno ururada waa saa sheegtay walaal laba urur ayaa meesha ka joogta Soomaali ah saddex aan dhihi lahaa wuxuu urur shir aad u muhiimsan oo dadka ajaanibta khaasatan wadanka ku nool iyo Swedish-ka wadanka aan ugu nimid oo faa'iido ah isdhaxgalka waa shay aad iyo aad muhiim u ah waxyaalaha ugu muhiimsanaa oo maanta la isla qaatay in lagu wada shaqeeyo haddaad noo dulmartid si dadka Soomaaliyeed xataa uga faa'iideystaan maxaa ka mid ahaa sidii kartaa waxyaabihii loo isku qaatay workshop wuxuu ahaa in waxyaabaha loo muhiimsan oo laga shaqeyn karo si alwaanka uu ku qornaa groupinka loo kala baxayna gurubyadu waxay soo qeexeen qaabka loo wada shaqeyn lahaa oo ay u horeyso xuquuqda bini'aadanka haddii aan lahayd dhanka waxbarashada haddii aan lahayd dhanka caafimaadka waa laga hadlay waxaa laga hadlay ii sheeg caruurtii iyo dhalinyarada dhan badan oo xaqiiqdii muhiim u ah ummadda ayaa laga hadlay waxay la isku afgartaan waxay in arintaas hor loo sii wado oo la sameeyo isku xir guud ururada qaybaheeda kala duwan ee bulshada dowladda Sweden ayaa soo sheegtay inay musaafirinayso 15 jir Soomaaliyeed oo ku dhaqan dalkan Sweden faahfaahinta warkaas waxa inoo akhrinaya Ibrahim Maxamuud Jaamac gabadha lagu magacaabo Sumaya oo ah 13 jir u dhalatay wadanka Soomaaliya ayaa laanta socdaalka ee Migration Sparked ay go'aan ka gaadheen wadanka laga mustaafiriyo talabadan ayaa imaanaysa markii uu been uu ka sheegay nin Soomaali ah oo isagoo baaritaan ku sameeyay luqadda ay gabadhaasi ku hadlaysay ninkan ayaa sanadkii hore soo qornay in uu wareysi ka qaaday 5,000 oo qof isagoo oo dad badan oo Soomaali ah uu ka been sheegay habka luqadda deegaaneed ee ay ka soo jeedaan Sumaya oo sheegtay inay ka timid magaalada Buula Berde ee gobolka Hiiraan ayaa ninka Soomaaliga ah ee u shaqeeya shirkadda Sprokab oo loo qariyo magaciisa oo Shugo waxa uu sheegay in aysan halkaasi ka iman balse ay ka soo jeedo Somaliland telefishinka STV ayaa qaybta baaritaanada ee Obdra Grasnian ee marka la baaritaanka lagu sameeyay arintan ninkaas ayaa cadeeyay in uu baynaale yahay oo uu dadka Soomaaliyeed uu ka been sheegay ninkan ayaa sanadkii hore arintaasi waxa fashiliyay telefishinka STV kadib markii uu been ka sheegay wiil la magacaabo Maxamed oo isagoo ka soo jeeda deegaanka Afgooye isagoo sheegay in wiilkaasi uu ka yimid Somaliland telefishinka ayaa xitaa soo bandhigay in ninkaasi uu been ka sheegay waxbarashadiisa oo uusan waxba ka dhigan jaamacadda ku taala magaalada Stockholm sida uu ku qoray CV-ga uu u gudbiyay Migration Sparked adaba laanta socdaalka wadankan Sweden ayaa go'aan ka gaadhay in ay dib u fiiriso kiiska Maxamed isagoo hadda sharciga la siiyay balse waxa wali wadaan wada shaqeyntii ay la lahaayeen shirkadda Sprokab oo uu shaqeeyo ninkaasi beenaalaha ah shirkadaas oo xitaa la shaqeyn jiray laanta socdaalka wadankaasi Ingiriiska ayaa sanadkii hore ay dowladda Ingiriisku joojisay wada shaqeyntii maadaama ay soo baxday in ninka Soomaaliga ah ee u shaqeeya beenaale yahay arintan Sumaya ayaa mar kale telefishinka SBT ay u soo bandhigeen Professor Abdullah Umar Mansour oo ah qabiir ku takhasusay luqadda Soomaaliga oo wax ka dhiga jaamacadda wadankaasi ku taala Roma ee magaalada wadankaasi Talyaaniga Professor Abdullah Umar Mansour ayaa aad u la yaabay sheekada ninkan isagoo ku tilmaamay go'aankiisa mid lagu qoslo hanaanka waxbarasho ee SFI-ga wadanka Sweden ayaa waxa laga yaabaa in bilaha soo socda wax laga bedelo faahfaahinta warkaas waxa inoo akhrinaya Ibrahim Maxamuud Jaamac dowladda Sweden ayaa rabta inay wax ka bedesho hanaanka ay dadka Soomaaliyeedka ku bartaan afka Swedish-ka qorshahan cusub ayaa dowladii hore dhowr jeer soo hadal qaaday haddana waxa rabta inay hirgeliso dowladda cusub waxaana sidaasi cadeeyay Idea Haitielek oo ah wasiirka kobaca aqoonta habkan cusub ee loo bedeli doono sida ab Swedish-ka loo barto ayaa noqon doona hab ardayda u sahlaya in qof kasta si gaar ah loo caawiyo iyadoo loo sameynayo qorshe waxbarasho oo ku saleysan hadba heerka aqoonta qofka inta ay tahay
inkastoo ay qayb sharcigani ka mid ahi uu hore u jiray. haddana waxaa jira deegaano badan oo aan weli ka hirgelin sharcigani. hanaankan cusbe waxa uu sidoo kale sahlaya in la badiyo fasalada fiidka lagu barto luqadda afka Swedishka ee loo yaqaano SV si qofka shaqeynaya uu helo fursad uu sidoo kale afka ku barto galabtii. qorshahan cusub ayaa dhaqan gali doona 1 July ee sanadkan. waa tahay daawadayaal saaxiibayaal intaas ayuu ku egyahay wararkii telefishinka Midnimo TV oo aad caawa igala socoteen anigoo Cali Yaasiin Gurba ayaa idin la socodsiinayay Maxamed Xaaji iyo Ibraahim Maxamuud Jaamac ayaa igala qayb qaatay inta aan wararkan iyo kuwa kale la mid dib ugu kulmi doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. intaasi waxaan ugu ekaa wararkii aan idinka haynay guud ahaanba waddankan Sweden. haddana waxaanu milicsan doonaa qaybaha kala duwan ee barnaamijyada aan ku talagalnay. haddaba waxaa hordhaca barnaamijkeed ku soo socda oo noqon doona barnaamijkii mawlada caruurta oo aan ugu talagalnay barnaamij xiiso badan oo ka kooban sheekooyin iyo waliba maanso suugaaneed ay soo ururisay Qadan Muuse Axmed oo halkan aan idinka soo gudbin doono. caways wanaagsan caruurey waa mar kale iyo barnaamijkeeni maaweelada caruurta oo aad ka daawataan TV-ga Midnimo. caruurey barnaamijka maaweelada caruurta waxa aan ku soo qaadanaa had iyo jeeraale sheekooyin. sheekadan caawa inoogu hayo barnaamijkeenana waxa la yiraahdaa nolol iskaashi way ku jirtaa tafaraaruqna waa geeri. caruurey beri baa waxa jiray 3 dibi oo duurgal ah oo xoog waaweyn. 3 dibi midabkoodu waxa uu kala ahaa dibi cad, dibi madow iyo dibi cas. caruurey libaax ayaa waxa uu isku dayay in uu cuno dibiyada. 3 dibi waa isdifaaci jireen. libaaxna waa uu cuni kari waayay 3 dibi maxaa yeelay markasta uu soo weeraro waa isdifaaci jireen waana isu kaashan jireen 3 dibi. libaax waa uu awoodi kari waayay inuu cuno dibiyada maxaa yeelay markastuu isku dayo inuu mid ahaan cuno labada kale ayaa ugu tago oo ka rida. kadib libaax markii uu awoodi waayay inuu cuno dibiyada ayaa waxa uu sameeyay in uu la saaxiibo. markii uu libaaxii la heshiiyay dibiyadii afartooduba way isu heshan jireen oo way wada noolaayeen. libaax mar walba ilba u dabnayd 3 dibi kalena waxay ahaayeen daacad. habeen dayax uu 14aad ahaa ayaa libaaxii dibigii casa iyo dibigii madooba la faqay oo uu ku yidhi waar dibigan cad meel fog ayaa laga soo arkaa oo waa laynagu soo eeganayaaye aan inaga dilo. labadii dibi waxa ay ugu jawaabeen caruurey haa. kadibna halkii ayuu ku dilay libaaxii dibigii cadda iyaguna umay hiilinin. habeenkii dambe oo dayaxu haddana 15aad ahaa ayaa meeshii waxa u soo dhawaaday ay ku noolaayeen dibiyada iyo libaaxu reero
dibigii madooba oo aad u baqanaya ayaa waxa u yimi libaaxii markaasuu ku yidhi war innaga laynama arkee dibigan cas ee dhalaalaya ayaa laynagu soo eeganayaaye intii aynu wada dhiman lahayn isaga aan inaga dilo sidii baanu ku dilay libaaxii oo cid dambe isugu tagta aan ka baqanaynin ayaa dibigii madooba ee soo hadhay ku yidhi waar madoobow ma isu baxnaa dibigii waxa ugu jawaabay caruuray haa kolkaasay isu baxeen ayaa la legday libaaxii markaasuu ku yidhi waar dibiyow iga kac mar kale aan isu baxnee markii labaad ayay isu baxeen dibigii baana la legday dibigii waxa uu ku yidhi libaaxow iga kac anigu waanigii kaa kacaye libaaxii waxa uu caruuray ugu jawaabay aabbaha iyo hooyaday waxa igu yidhaahdeen la iskama kacee waa la is cunaa dibigii madooba waxa uu ku calaacalay iyadoo libaax uu cunayo haddaan kuu diidi lahaa inaad saaxiibaday cunto caawa imaad cuni karteen iminka imaad cunine ee markii dibiga cad in aad cunto aan kuu ogolaaday ayaad anigana i cuntay caruurey nolol iskaashi bay ku jirtaa tafaraaruqna waa geeri caruurey sheekadeena halkaas ayay caawa ku dhammaatay inta aynu mar dambe isugu imanayno sheeko kale waxaan idinkaga tegayaa ammaano alla iyo ismaqal dambe oo xiise leh حي 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 الأمورة جانا وحي عالصوم ووليد هالنجم بين إخوانا يا ربي بارك ويزيد حي الأمورة جانا وحي عالصوم ووليد هالنجم بين إخوانا يا ربي بارك ويزيد عليها شو بيحنوا إن غابت عنهم جنوا عليها شو بيحنوا إن غابت عنهم جنوا دايما العيون يغنوا جانا يا عيون إخوانا حيو 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 الأمورة جانا وحيو عالصوم ووليد هالنجم بين إخوانا يا ربي بارك ويزيد حيو الأمورة جانا وحيو عالصوم ووليد هالنجم بين إخوانا يا ربي بارك ويزيد دايما تلعب معاهم تحكي كل شي وراهم دايما تلعب معاهم تحكي كل شي وراهم يا الله ما أحلاهم جانا يا عيون إخوانا حيو 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 الأمورة جانا وحيو عالصوم ووليد هالنجم بين إخوانا يا ربي بارك ويزيد حيو الأمورة جانا وحيو عالصوم ووليد هالنجم بين إخوانا يا ربي بارك ويزيد بتلاقيهم بالبسمة تحضنهم محلى الضمة بتلاقيهم بالبسمة تحضنهم محلى الضمة ترسم معاهم رسمة جانا يا عيون إخوانا حيو 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 الأمورة جانا وحيو عالصوم ووليد هالنجم بين إخوانا يا ربي بارك ويزيد حيو الأمورة جانا وحيو عالصوم ووليد هالنجم بين إخوانا يا ربي بارك ويزيد لو بابا وماما طلعوا مشوار صغير ورجعوا لو بابا وماما طلعوا مشوار صغير ورجعوا عيونا لما بيدمعوا جانا يا عيون إخوانا حيو 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 الأمورة جانا حيو عالصوم ووليد nashiidadaasi waxay u dambeysay barnaamijkii maawalada caruurta oo noqon doona barnaamij xiiso badan oo taxana ah caruurtuna ay ka bogan doonto habeen walba oo sabti ah saacadu markay tahay 8 ilaa iyo 9 fiidnimo dawadayaal haddana waxaa idku soo foodle sheekadii maanafay oo ah sheeko jacayl ah taxanana oo uu inoo daadihiyo wariye maxamed xaaje siday tahay naftaydiyo lama socotid hawla sanada hali hayste siday tahay naftaydiyo lama socotid hawla sanada hali hayste sasabiyo wax sheegayo
kusoo dhawaada qaybtii 8aad ee sheekadii Maanafay oo uu qalinka u qaatay Maxamed Daahir Afrax. waxaan halkan ka soo jeedinayaa anigoo ah Maxamed Xaaji Xuseen Raage. intay warshada indhaha ku sii taagaysay bay dareentay baabuurka oo kor u lahaa. wixii hore oo dhami waa bikh iyo bilaash. hadda la gacan galay laamigii laga bayr luuq dheer dhexdood la qardajeex kayn jiq ah la dhexgal in yar kadib iftiin lama filaan ah baa mugdiga ka dhex bidhaan. waa iftiin yar oo casuus leh nal iyo faynuus midna laguma sheegi karo. maana kud bay isku tiri waxaan camal weligeed ma arag. waxaa ku soo dhacay cirfiidka iyo waxyaabihii kale carruurnimadeedii lagu cabsi gelin jiray ee ay maqli jirtay duurkay joogaan. intuba inta ka dhaqsi leh meeshii bidhaamaysay ba waa leeyay. waaba daar dadka hor muuqda sar gaaban oo 4 jihaba irda ku leh ayaa kayntii mudobeed ka dhex dhalatay. horteeda dad qoryo waaweyn lagu shiday baa dhowr goobood ka qaxmay. hareeraha dhowr ay baa ununufay. hal ununufkii ka agab waayina dabku ag fadhiya. waxaad moodaa inuu dhaxan ka kulaalayo mase dhaxamaysnee halkiisuu irsaq ku sugaya. agaarka haddaad eegtid inta yar ee dabku iftiiminayo dhaaftid ishaadu waxay ku dhacaysaa dhir madmadow oo qofkii naf jecel cabsi gelinaysa. haddaad sii dhaaf damacdidna gudcur madow baa ku soo celinaya. markii Cabdinaasir breegii cagta saaray fatuuradii kuusnaydna istaagtay bay tirmaana iyadoo codkeeda jiijiidana caloosheeda walacsan ka turjumayo. abbaa intana maxaa waaye saaxiib waa jungalka cusub. sahra ugu jawaabtay. Cabdinaasir su'aashaas iyo jawaabtaas midna lama socon. wuxuu la haystay wiil dhuuban oo shaar cad oo hoos u dheer hortana ka furan gashan. markuu baabuurku istaagay buu ku soo orday kana soo tagay koox wiilal ah oo baarka hortiisa heegan ku ah. sida u kala firfircoon yihiin bay baabuurta ugu kala hormaraan martida u soo dhaweeyaan bakshiishkoodana ku bislaystaan. intuu si xushmad iyo albaxnimo ku jirto daaqadii wadaa xigtay u soo hanqalocsaday ayuu cod gaaban oo aad moodid inuu gabdhaha ka qarinay ku weydiiyay kuraas baad rabtaan mise geedaha hoostooda. geedaha nagee Cabdinaasir baa ugu jawaabay cod aan kiisi ka dheereen. markuu codkiisii maqlay buu intuu gartay ku yiri waa yahay Cabdinaasir. naasirna markaasuu intuu si fiican u eegay ogaaday inuu yahay yaryarkii ay meesha hore isugu bartaan. markaasuu yiri haa ilaa ninku waa Faarax yare. Faarax geed wanaagsan nagee. Faarax intuu tilmaan bixiyay buu baabuurkii hor orday. Cabdinaasir oo daliiqaan ahina fatuuradiisii buu intuu nalkii u gaabiyay la dabagal sidii hal maqaar loo siyo ama dayuurad garoon ciriiri ah ku soo degtay oo bartii ay qotonsan lahayd loo hagayo. yarkii firfircoonaa wuxuu sii ordaba fatuuradii kuusnayd ay sii higsato midig iyo bidix midba mar kaynta loo culo marba geed baabuur hoganaya la hareer maro mar damba geed aan cidina dhex galgalanaynin horseedkii helay. geedigiina ugu gacan haaji waa geed qurac ah oo hoosta laga xaar laamihiisa soo gandoodsadayna ood lagu hareereeyay baarka u salaaxayso sidii nin cashqaan ah oo gacalisidiisii gacmaha dhexdooda ugu jirto. hal irid oo ka banaaneed bay ka soo gashay fatuuradii kuusnayd. geedka salkiisii baa lagu agbaqtiyay. Faarax yare intuu laba darmo la soo booday buu Cabdinaasir weydiiyay ma kala qaadaa mise isku meel bandhiga. markan codkiisa waa la wada maqlay inkastoo uusan ku dheeraysan. sahra intay Cabdinaasir ka boobtay kor u tiri isku meel noo dhig abow wax la kala qaadaya ma jiraan. marka intaa tiri bay maana xaggeeda fiirisay sida iyadoo leh waxba cabsan saaxiib aniga kula joogay. Faarax intuu darmihii hurgufay oo meel cusub ku kala bixiyay Cabdinaasir isa soo agtaay. markuu dhagta wax ugu sheegay kadibna orod buu cagaa wax ka day. markii baabuurkii laga soo wada tagay darmooyinka xaggoodii loo wada dhaqaaqay ayuu maana wadnuhu xoog u boodbood. markii hore way diidaneed inay gaari ka soo degto si dhib leh baa looga soo dejiyay looguna soo daadiyay sidii ilmo carruur ah. hadda waa kana kawaankii lagu saari lahaa ee cawada dhan lagu soo waday way iskula hadashay. intay istaagtay bay afarta gees aagtay. cabsi hor leh baa ku dhalatay markay aragtay mugdiga ku meersan madmadowga meel kasta ka soo muuqda gudcurka lagu soo dhuuntay geedka la hoos galay gobasha dhulka la dhigay. aadaa cawada waa la ishayaa. sacab haddaan wax ku jirin maxaa habeenkii loo tumaa. تفضل معنا سو دو أباي أحمد با isagoo darinta u tilmaamay ku yiri maanafaa oo caga taalaynaysa kana biidiisan inay fariisato gobasha saaxiibteed uga hormartay maana waa ismartiyeynaysa miya Cabdinaasir
oo kabaha furfuranaya ka dabiir waan ka xumaa inaan baabuur ciriir ah ku soo saarnay oo ay lugu ku soo curqeen darmooyinka iyo dhulkan fidsan waxa loogu talagalay in lagu jimicsado ee baabuurka daalkiisa looga nasto ka waran hawo gediskan maana ma ka heshay waxa ku sigatay inay runteeda u sheegto ee tiraahdo ma ka helin mana joogay haddii muslim tihiin mar le mininkay igeeyay mase orane iyadoo reer magaalnimada ilaalinaysa ayay afgobaadsi ku tiri iyadoo sii fiirinaysa waa fiican yahay laakiin maxaa waay mugdigaan aan wax ma arko haye horta maxay geedaha faynuus u hoos dhigi waayeen saara ka daba tiri way keeni lahaayeen aniga faynuus uma baahan axmed baa ku kaftan waayo waxaan ogaa in ay maana iftiin noogu filan tahay iyadu waxay leedahay waa mugdi laakiin inteeda kale mugdina lama aha nuurkeedaan wax ku arkaynaa soo maaha كهذه الشوكة إذا يقدرونا كنيشينا عي أن يقوها الدبايو وذن مراهي مانا واحد دمعضي إني أما تصبونبونس بكجرو جواب كعرس لكنسا مركي حسوستيدي وراح كوهبون دقدق وقود ديقويدي بإسكتري وما صنتها عبار بالسي ودوده كفتنكي مaalin lagu maaweelinayo loogana dan lahaa inay jawiga la qabsato cashaduna u dhadhanto iyadoo wali laga bixin ayuu soo dhacay farxiyar oo ximay lix saxan oo istul saaran buu dhulka dhigay waa suxuun balbalaaran oo siin ah markii la kala qaaday waxay noqdeen saddex maran iyo mid baris ku jiro iyo mid hilib dhaylo ah ka buuxo iyo mid aan salaato ah xabad taraq ah oo Cabdinaasir Shide ayaa suurta geliyay in la arko farxiyar intuu isgadiyay buu intii suxuunta la kala gurayay soo dhigtay isagoo sida laba dhalo biyo ah iyo saabuun biyo Axmed Maanafay ugu farxay Cabdinaasir Nasahar kadib intay ka daba faraxasheen baa cashadii gacanta lala waday iyagoo iska yureynaya mukulaala markii hilbaha uriyaan ku soo hayn maana way iska taataabanaysi mooyee si dhaba u casheynay inkastoo Axmed ku dadaalay inay wax uun cunto markii cashadii laga faraxashay xaashiyii farxiyar keenayna la iska mariyay ayuu damay Cabdinaasir in isaga iyo gabadhiisu ay dirintooda gaariga dushiisa geystaan iyagoo marmarsiiyo reer magaalnimo ku baxay labada kalena loo faqday intuu istaagay oo si ixtiraam leh sahra ugu yara foorarsaday gacmahan u fidiyay ayuu ku yiri isagoo isku halayn ugu ka jamay isuna akaysanaya sidii nin caways muusika laga tumay joogo ee gabar uusan aqoon ciyaarta ku casuumaya ayuu yiri barmeeti boqorada in yow ka diiday ay ugu jawaabtay intay garbaha nuuxisay iyadoo ka jankii la wada wuxuu mooday inay ulajeedadiisa la garan weyday markaasuu u bedelay oo intuu gacanta qabtay ku yiri soo istaagun shoor baan ku qabaay waxaan rabaa inaan maxkamad kugu saaro meel aanay joogin dad iga ka celiyo sahra aad bay u fahmaysay baaqa duqeeda ee afgobaadsiga ah haseesha waxay ku diideen fikradda kala shawrida waxay la socotay dareenka maana iyo cuqdada ku dhalanaysa waxay garansanay in aan wali la gaarin waqtigii ku haboonaa in loo faqdayo Axmed iyo Maanafay Axmed qudhiisu uu la qabo intii Cabdinaasir gacantii uu ku hayay ma heetii kale soo qabatay beetir soo fariis adeer caawa shoor waa la diiday markii ay afka intaas ka lahayd gacantiisii ay haysayna far bay hoos uga mudaysay uu gartay qandhufadaasi inay tahay baaq ay ula joodo maalinta miyaad baydadinaysaa yarta martida ah ee aan wali jawiga la qabsan way agnimadana lahayn intuu garaystay buu gabadhiisii mar labaad soo dhinac fariisay isagoo Maanafay maqashiinaya haddii la diiday nin la diido ugu horreyn waan iska dul qaadanaya intuu maanaja lacag u raaciyay saas ma ahaan mis abaalkeedan mariya saaxiibta haddii ugu caasiyo macna mala ka qalay markaan Maanafay ayaa kaftankii uga qayb gashay waayahay warkaaga jira madaxaaga ku dhaafaya caawa annagoo dhan adigaan xukumo amarkii aad bixisaan lagu soconaya mahadsan kaftankii iyo sheekadii macaanid halkaa bay ka sii socdaan darmooyinkii baa marba dhinac loogu jimacsanaya saf ballaaran baa loo fadhiyaa labada gabdhood dhexda iska xigaan labada inanna dhinacyada ay kala xigaan sheekada marna waa la isku darsanayaa marna laba loo kala goosanaya goosiga sida badan waxaa bilaabayay Cabdinaasir oo markii iyar la joogaba gabadhiisa ku sii jeedinayay shoor hoosaad aan iyada mooyee dadka kale maqli karin inay maqlaan looma baahna wuxuu ahaa shoor hoosaadka xiisaha leh ee markaas oo kale labada isjecel dhegta isu saaraan iskuna gacalsadaan laabta isugu qaboojiyaan wada jooggoodana ku macaansadaan jacaylkoodana ku nafaqeeyaan وباحي جعيلك
ada iga astaa ammaan iyo bogaad oo iga hor ubaaxi jacaylka ada iga astaa ammaan iyo bogaad oo iga hor أحد يوحلاشي والد كذا أسلوبتيو أشحيو إداها بري أحد يوحلاشي والد كذا أسلوبتيو أشحيو إداها بري أريني ما نقطة الليلي والليلي أيان ينسيب لي إنجينير أحمد جامع قولي سرال ينسبك أحشوكاس لقال في جيساني وحو قادني ميد إساقا لوغو تناني جوي هبونا لوغو ديارني لوغو فقديني إساقا يبقى بربر markay ka sii jeestaan wuxuu u fasiranay in ay isaga la hadlayaan oo ay leeyihiin shaqayso nacasiyo anna wax cusub isu sheegi mayne adigaan ku faqdaynaynaay iska dhuma fursadan dahabiga ah ee aan dibdaba ku soo mari doono haddii hadda marin habaato xirxiro xargihii aad ku soo dabi lahayd qalbiga urdanka ee manfaad axmed dadaalku ma yareen labada dhinacba wuu u dadaalay dhinac wuxuu ku dadaalayay inuu xusho sheekooyinka gudhaha noocaas oo kala xiiso gelin kara iyo ereyada qalbiga raadka ku reebi kara dhinac kalena wuxuu ugu dadaalayay inuu isugu muujiyo nin ikhyaar ah oo aan ahayn shabeelnaagood habeen dhaxmadoon ah nin degan dantiisuna ahayn waxyaalaha ay iyadu uqdada ka qabi karto caadadii uu hablaha kula dhaqmi jiray habeenkaas uu bedel wuxuu la dhaqmi jiray sidii ilmo carruur ah oo uu ciyaarsiinayo erayo culus iyo arrimo waaweyn ka ilaalinaya uu soo dedejin jiray burburinta gidaarka qallada iyo ismartiyeynta ee u dhaxeeya isaga iyo gabadha ay isku cusub yihiin wuxuu soo okeysiin jiray dadka aan waxba danin waxba isdhibin waxba kala jeclayn wax waliba la sahlan yihiin caadi leeyihiin hadday sidaa u dhacdo iyo hadday sida kale u dhacaan ninkii sidaa yeeli jiray caawa wuxuu u muuqdaa si kale waa kaas sida jantalmaannimada ah u fadhiya madaxiina ku xanuun siduu erayo u kala xulayo sheekooyin u alifayo dunta afkeedii u raadinayo marba shax hor leh u jeexda afkiisa iyo adinkiisana u ilaalinaya erayga ka soo baxana dib ugu miisaamay wejigiisa u maqaar saaray milicsigiisa u macaaninay keedana macnihiisa u akhrisanay sacabkiisa sahanka u bisabisoon jiray wuxuu amar adag ku siiyey inuusan habeenkaas dhufayskiisa ka baxo sahankii aad caawa maanafaay korkeeda ku aadaa wuxuu noqon doonaa shimbirtii dabka qaada ee buulka hooyada gubtay iyana ku gubatay ayuu ku waanay wuxuu qabay in nin kasta gabar kasta haye ka keeni karo haddii uu garto sida la isula eegto ereyga ku habboon waqtiga ku habboon iyo meesha ku habboon axmed isbeddel weyn ayaa habeenkaas ku dhacay isaga qudhiisu uu isla yaabana waxay ku akhrisay qoftan maxay uga duwan tahay kuwii hore muxuu yahay xishoodka aan caadiga ahayn ee ay ku abuurtay maxay tahay qadarintan xaddhaafka ah ee cabsida u goormuu qadarinta intaa la eg siin jiray gabar uu shukaansi u horfadhiyo goormuu ujeedkiisa jidkaas dheer u soo mari jiray ee waqti isaga dhumin jiray soo kii hablaha u yaraysan jiray sidii ilmo carruur ah oo la ciyaarsiinay maxay tahay qoftan uu kor u eegay sidii boqorad uu shaqaalo u yahay amarna ka sugayo caawa isagiiba carruur isla noqon arrintiisii la yaaba ujeedadiisuna u qaxnay dhibaato kasta ha maree dhab ahaan wuu ku guulaystay inuu maana jawda u kulaysiiyo maskaxdeedana cabsidii badneed ka saaro inkastoo arrimaha uu kala hadlayay ayaan hoos uga gudbin sheeko guud iyo erayo maaweelis ah marar badan bay erayadaas xiisaha leh ku ilaaweysay dareenkii qallada iyo meesha cabsida leh ee ay fadhiday laakiinse iyar kadibba intay soo gocatay bay kud isku dhahaysay oo ay lahayd yaa akhay mubaxlino aan waa daahaye dhowr jeer la basanbasi marba saxanka loo bedel markii dambe axmed baa garab siiyey oo yidhi ina kiciya maana waa daahinay daawadayaal qaybta 8aad ee sheekadii maanafay intaa ayaynu kusoo afmeeraynaa toddobaadkan waxaan sheekadan qalinka u qaatay maxamed daahir afrax waxaan idiin soo jeedinaya anigu maxamed xaaji xuseen raadi intaynu qayb lamida tan ku kulmi doono toddobaad soo aadan haddii alla idmo salaam ayaad iiga dhiganto eegmada jaleecada indhahaad uroonte
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeena kulanka Kalson TV oo toddobaadla ah haddana idinka imaanaya magaalada Gothenburg waxaa marti ku ah wadamada Yurub gudoomiyaha ama madaxa ururka Somalia Action Alliance oo ah urur Soomaaliyeed oo iyagu ka howlgala waqooyiga Ameerika waxay u yimaadeen wadamada Yurub sidii ay aqoon weydaarsi ula sameyn lahaayeen isla markaasina khibradooda ay ku kordhin lahaayeen dadka Soomaaliyeed oo ku nool wadamada Yurub arinta la xiriirta dhaqdhaqaaqyada islaam nacaybka iyo waliba wixii ka dhashay shaafi ku soo dhaw Kalson TV dhawahay aad baad u mahadsantihiin adiga iyo bahda Kalson TV dhamaantiin waxaan maanta ku sugan magaalada Gothenburg nasiib baynu yeelanayna halkan maanta aynu dadka Soomaaliyeed uga gudbino fariintaada ee ku aadan in guuliyaad ka gaarteen hawlaha aad u hayseen mujtamaca Soomaaliyeed hadii aad tihiin ururka Somalia Action Alliance bal ururkan goorma la asaasay hadafkii loo asaasay muxuu ahaa ururku waxaa la asaasay sanadkii 2002 markay September 11 dhacday kadib yaa waxaan aragnay xanuun iyo baahi weyn inay dadku ay inoo hayso saan nolosha wadanka aan ku nool laho Mareykanka ama aan qayb ka nahay aan lifekiisa u fahmi lahayn qaybna uga noqon lahayn ay ka mid tahay ka qayb qaadashada nolol mujtamaceedka wadankaas xagga doorashooyinka waliba that time iyo waliba arrimihii bulshada oo ama la taabanayay oo khatar nafsadeena ku ahaa ama liddi ku ahaa nafsadeena sidii wax looga bedeli lahaa inay noqoto dadkii qabanayay inaga inoo kaashanayno dadka mujtamaca u dhashay wadanka kala duwan taasoo ku dhashay hadafkeena wuxuu ahaa inaan gaarno ama aan uga tagno mustaqbalka fog dhalinta ku nooleysa ama ciyaalka dhalan doona in baabuur iyagu ay leeyihiin oo sii wataan oo generations isku gudbaan oo u sahla nolosha wadanka inay qayb ka yihiin iyaga inaynu abuurno halkaas ku yimid marka taas way in shaaf adigoo mahadsan mowduuca aadka aan u xiiseynayno waynu gudagali doonaa laakiin bal marka hore maxay ka hirgalay dhinaca siyaasadda oo kale wadanka Mareykanka maxaad ka xusi kartaa is leedahay Soomaalidu guulbay ka soo hoyay tusaale ahaan maanta waxaa laga yaabaa inaad maqashaan Minnesota codaynta aad bay ugu wanaagsan yihiin 2002 waxaan ku bilownay markaan bilaabayna hawshan waxa la dhaho Somali Voter Participation Project Soomaalida ugu horeyso oo wastiga timaada oo si collectively ah eedan xisbi iyo xisbiyo toona aanan cod iyo aanan u shaqeynayn ama kamid ahayn inay diiwaan gelino inay codeeyaan iyagoo waliba dadka la doortayaasha ama markaas musharaxiinta ahaa 2002 weydiinaya arrimihii noloshayna taabanayay September 11 baa dhacday dhaawacyo badan xanuunyo badan baa jiray waxyaabihii noloshayda taabanayay muslimiinta waliba Soomaalida gaar ahaan inaanu aan weydiin karno kuwa markaa musharaxiinta ah inay nagala shaqeeyaan haddii la doorto in wax laga qabto arrimaha noocaas ay ka mid tahay immigration iyo waxbarashada marka doorashadii aan ku bilownay inaan 600 qofkii ugu horeeyay aan diiwaan gelino waa 2002 maanta systemka aan xafiiska anigu maamulo oo sanad kasta aanu banaanka aadno albaabada la soo garaaco dadka sidii u codeyn lahaayeen lagu dhiirigeliyo lana barana sidii u codeyn lahaayeen maanta waxaan maraynayaa 20 Soomaali oo codeyaal ah oo codeya iyo systemkeena maanta ku jira alxamdulillah Soomaalidu waxay noqotay awood aan la xaqiiri karin ee siyaasadeed waxay noqotay awood siyaasadeed lagu xisaabtamay state-ka Minnesota waxaan dooranay qofkii ugu horeeyay inuu loo galo city council-ka magaalada Minneapolis qofkii ugu horeeyay inuu loo galo school board-ka marka waxaan rabaa alxamdulillah inay horta waxaan dhan ay ka timid oo istaagii ugu horeeyay dadaalkii aan muujinay kadibna alxamdulillah maanta aan la isweydiin wax la dhaho electionka waa guul ha noqoto dhinaca kale xagga isdhexyaalka bulshada ama ka qayb qaadashada nolol mujtamaceedka wadanka ilaa 15 dhalinyaro ah oo Soomaaliya police aan leenahay maanta idin la joogo Gothenburg shalay waxaa la dhaariyay 2 wiil oo Soomaali ah oo ku soo biiray ciidamada magaalooyinka aan ka imid Minnesota marka waxaas dhan waxay ka mid tahay guulaha Soomaalidu ay ku gaareen horumarkii isdhexgalka aan bilownay iyo markaan furnay boorsooyinkeeni oo anaga wadanka leh waxna waan ku leenahay adigu mahadsan Shaafi guulahaas waa guulo ay u soo hoyatay guud ahaan Soomaalida aan oran karnaa hadda waxa jirta barnaamij hadalayntiisu aad ay u xoog badan tahay oo ah dhalinyarada Soomaaliyeed in ay ka qayb qaateen ku biritaanka dagaalada ka soconaya wadamada bariga dhexe arintaas gormay saamisi ku horeysay horta inaga Soomaaliya ahaan markay noqoto Soomaalida Minnesota 2008 baan ugu horeysay dhalinyaro meeshanada ka tagta ee aada wadamada Soomaaliya ee dagaalada ka socday ha ku baxeen say dooneen laakiin
khasaaro weyn iyo dhib buu inoo ahaa inaan wiil dhalinyaro ah aan ku lumino dagaal aanan sabab lahayn iyo gruubkii ay gacanta u galeen oo noqday gruub baabi'iyayaal ah aan nolosha biniaadamka aan qiimeyn diin islaamna shaqo aan ku lahayn yaa waxay keeneen ilmihii inay naga dufsadeen dhib weyna ku dhacay laakiin cashir bay noo ahayd waxaa dhacday soomaalidii reer Minnesota inay isku timid aqoon-yahankoodii ay culummadoodii horkacayso waxgaradkoodii kala duwanaa waalidiintii iyo macallimiintii iskaashi badan kadib waxaan ku guuleysanay ilaa waliba hay-adihii amniga iyo soomaalida wada shaqeynaya waxaan ku guuleysanay inaan muddo 5 sano ah dhalin aysan naga tegin waxaa haddana ayaan daro noqotay qolada baase ay iska dagaalama Syria Iraq markay yimideen inay iyagana aanu qaar naga dufsadeen sanadkii la soo dhaafay dhexdiisa taasna dadaal badan sababtoo ma aanan filin ma anagoo filim bay nagu dhacday sababtoo Soomaaliya waxaad filayso ahaaba laakiin ma aanan filayninba marka tan maadaama aanan filaynay nagu dhacdayna markiiba waxaan u galaystaan aysan u dhicin u sii socon lahayn oo wada shaqaynteennii dowladda iyo bulshada oo xoog lahaa taasna waxay sahashay markii uusan badnaanin haddana waxaan xoog ugu jirnaa insha Allah intii tagtana inaysan waxaan ku dhahay aysan kuwa kale naga tegin kuwaasna aysan noqdaan kaliya kuwii noogu ekeed inay tagaan shaafi adigoo mahadsan bulsho waxaan la noolnahay aad dadka u soo dhaweysay oday noqoto wadamada Yurub iyo Mareykankaba arintani markii ay soo baxday oo ay dhacday in wiilal Soomaaliyeed ay baxeen oo warbaahinada caalamka iyo dadka ku dhex noolaadeenba warkan u gaaray dhibaato intee lag baa dadka Soomaalida uga timid intii aydan barnaamijyadan bilaaban saameyn intee lag dadkii ku noolaa wadanka ay ku qaataan saameyn aad u xoog badan bay ku yeelatay waayo 100,000 ka badan ayaan ku noolahay Minnesota kaliya iska daa wadanka intiisa kale ku nool waxaa dhacda in badan dhici jirtayna in muddo ah saameyntu waayo markii wiil Soomaali baxay oo qaarkood ay soo goodanayaan leeyihiin waxbaan qarxinayna waxbaan dhibayna waa dareemi kartaa dadku kuma kala garan karaan yaa Soomaali waa Soomaali magac waa Soomaali dadku waa isku midab oo isku eegyihiin isku luqad bay ku hadlaan marka lama yaqaan kan wax haleynaya kan wax haleynin taa waxay dhibaato u geysatay mujtamaci dhan inaan victim u noqono ficil ay midka xumo wadaha uu sameeyay warada marka ka duulayso kala dib weyn dadka kale ay kala kulmaan inkastoo ayaamahan ay run tahay shaqooyinkii way saameyn ku yeelatay gabdhaheena xijaabka lahaa shaqooyinkii qaarkood loo diiday wiilashaba qaarkood magacoodii maxamed iyo dhiba marka waxaa timid dhaawac weyn bay u ahaa laakiin waxaa mahad ilaahay statekan ku nool Minnesota macnaha sooyaalkii nolosheena oo success ahaa Soomaalidu dad nabadda jecel oo nabad badan ay ahaayeen taa waxay kaliftay in uu xuquuq badan uusan nagu dhicin innagana aan banaanka u soo baxno hadalno taa waxay keentay alxamdulillah inuusan dhaawac badan uusan gaarin laakiin dib weyn uu dhacay waana jiraa wali jecel xagga markii la eego masaajidada waxaa jirta meelaha ugu horeeya ee dadku farta ku gudayaan waa masaajidada la leeyahay markiiba targetka ugu horeeya waxay qayb ka ah dhalinyarada baxaysa culimada iyo waliba masaajidada arrintaas ay u sameysay xagga runtii saameyn weyn bay ku yeelatay culumadeennii oo sharafta badnayd oo ummad dhisidda u taagnayd oo markii la soo qaxay ilaa hadda dadkii Soomaali ka dhiman laadahay ah markaan dhabta kugu sheego inay masaajidda u dhisaan diintooda ay ka caawiyaan dhaqankooda iyo diintooda isay u xifdisan lahayn dadka kala shaqeynayay yaa haddana waxay noqdeen target ama ha noqdo mid xumo wada oo doqon oo ummadana qiimo aan ku lahayn inuu farta ku fiiqo culummadu yiraahdo hebel iyo hebel baa ka dambeeyay iyo masaajid hebel baa ka dambeeyay ama ha noqoto dawladii aan aqoon u lahayn ama hay'adaha amniga aan aqoon u lahayn waxa dhacay oo iska daba socdo ruumarka midka khaldan uu sheegay tiina alxamdulillah waxaan kaga soo kabsanay dialogue iyo wada hadal badan oo culummadu ay qayb ka tahay oo la abuuray waxay dhalisay alxamdulillah dawladda inay cadeyso baaritaan dheer kadib ay tiraahdo culummada iyo masaajidada xor bay ka ahaayeen shaqana kuma ay lahayn maxaan ku dhahaa ururintii ciyaalkaas inay dagaalada nooca ay aadaan ama fakarka khaldan ku baxaan culummadu inaysan ku lahayn taa way caddaatay waxayna alxamdulillah noo ahayd mahad ilaahay in culummadeena la dahiray wanaaggoodii iyo sharaftoodii iyagana alxamdulillah kaalin weyn bay ka qaateen la dagaalanka fakarkan khaldan wayna ka shaqeeyaan had iyo jeer laakiin dhaawac badan bay la kulmeen xanuun badan bay la kulmeen haraasimeynta qaar baa xataa barrada ka baxaan loo diiday runtii dhib weyn bay la kulmeen laakiin alxamdulillah waxay abuurtay haddana wada hadal badan inaan ku gaarno horumar badan adigoo mahadsan waxaa jirta cashar laga baran karo habkaad u marteen inaad isu keentaan laamihii dowladda imaamiyadii masaajidada iyo culimadii waalidiintii arrintaasi
maxaa laga baran karaa runtii waxaa laga baran karaa anaga markii xanuunka nagu dhacay culimmadeena la ceebsanayaan aragnay masaajidadeena waa wada taarget ah waxaan go-aan qaadanay inaan dowladda aan la fariisano waliba hay-adaha law enforcement aan u yeerno culummada iyo iyaga iyo inagoo wada fadhina aan su-aalahan qablana miiska saarno iyagana waxay su-aal qabaan miiska saaraan taa waxay ku dhiirgelinaysaa alxamdulilah inay arkaan culummada inay ummadda dhisaan mahay dhibaato aysan geysan culummadeennana aysan baqin si geesinimo ay u hadlaan uga hadlaan fakarkan khaldana inuu yahay mid asal uusan diinta islaam ku lahayn taasna alxamdulilah waxay noqotay culummadeena si openly inay arrintan uga hadlaan ayagoo dowladii aan ku qancinaynin laakiin principal ahaan ay ka tahay laakiin wada hadalka aan bilownay yaa asal u ahaa wada hadalka waa kan keenay maanta Minnesota 5 iyo 10 wiil oo Soomaali ah ay booliiska ay ka mid noqdaan hadduusan wada hadalka iyo wada shaqaynta dowladda iyo mas-uuliyiinta bulshada aysan jiri lahayna maanta lambarka dhalinyarada Soomaalida booliiska ma aynan lahaaneen crime-ka Soomaalida dhexdeeda ka dhacana muusan yaraadeen haddaysan jiri lahayn marka waxaan aaminsanahay wada shaqaynta dowladda iyo hay-adaha dowliga iyo amniga iyo waliba wada shaqaynta bulshada iyo culamaa u diinka iyo waxgaradka inuu yahay wax ku ool oo wax tar badan u yeeshay Soomaalida Minnesota aan rajaynayo halkana Ilaahay idin keenaysa haday sameeyaan aan rajaynayo inay ku guuleysan doonaan insha Allah adigoo maasan waxa jirta video clip aad ka diyaariseen in hooyooyin Soomaaliyeed iyo waliba waalidiintii iyo dadkii la dhashay ehladii dhalinyaradii ku dhimatay dagaalada arintaas saydi saameysay markii aad barnaamijka diyaariseen oo kale ku saabsan يرادس وحوها horta nin comedian laga jiray aad u furfuran oo yani hadal kala bointiga yar uu asagoo yar oo xataa kuwa ka waaweyn waaliyo ah ee qadarkii markii Bashir soo gaaray kaaska sagaalaad intii meel fiican ka gaaray iskuul islaamada ah in badan oo shan sano ku soo dhigtay iskuulkaasna in fiican akhlaaqeed aad uga soo dhismay yani hadalada maala yani ay kaftanka badan Bashir uu ka tagay marka quraanka meel fiican ka soo gaaray si fiican buu wax u baranay adin buu ka ahaa hadii alla ku raayay wax uu baranay quraanku leer fiican ka geeyay waa ku faraxsanay aad baan jeclahay marka soo jeclaanta iyo kibadiisi waa korba u kaada weelkii oo jaamacad ku dhiganayo oo quraankii ku dhiganayo salaadiisi haysto oo caawinayo oo muslimka caawinayo oo dadka ummadda oo dhan wuxuu arkay gaaray islaan saa u qaadanayo ku ah hadda farxadiisa ugu jiray un baanankii waay qolku aad jiray marka galbihii sigis akhlaaq oo kala aniga u baahday inaan meel u dirsado saacadda markaa fiiri sigis telefoonkii aan wacay telefoonkii qof ma qabanayo waa ku celiyaa wax qabanayo malahan aad ilaa 11 markuu imaan jiray habeenkii aan sugay qalbigii waa imaan jir waa qadeen jir waa bixi jir xoogaa waa nasin jir waa bixi maalintaas oo dhan ma imaan waxa waaye 3 November marka ilaa markii la gaaro xoogaa waa sugna wax imaan ilaa wan aqlaaga sugan mala aad ilaa waalka barisaa u sugaa cunug meelaan ka wacaamaha telefoonkiisi ma qabanayo marka 7 adoo dibaadigiisii baa وصو يعني وحكتجي وحياة بدن وفتجي عن شعراء نكهر أيو إسقى هري مركز 2008 كبلا كوحنا نقضي يعني السيدي حقا isolation عمل أنا كنت قاعد مدريمي وراني حتى دريمي أنا نقول لهين وتصرف محاول عليه وتصرف في منا أو كفتك هذه عيال كذي مقناشة على مبتة محاول عليه مركز أنا مرك حاول بعوض الدعية محدي جري وريد داعي ما عرفتي وذك أخلاق في عيلة دينتي سمارتو وهذه لبرس مرك أنا يسون كري يسون على محدي جري هاي ما عرفتي تذكارة كل جيل مرك شفتي أنا كان بريس تذكارة وسلام يعني سكر تذكار لك أفتر يعني هذا سكر الحلو لو هو بشكرين جري أنا ما عرفتي دحقلك بضدك أبوه الرجال وأبو العيال جري يمكن أنا بقول بشكرين شرينا ما عرفتي أصحاب تفرح كهرتي حضرنا ما عرفتي مدري تبع لوبي هاي دينتي متوسطة ما تكون حد حابة ما كربا أو تتكالي إيش كان ويحكي حبيحين ما أنا نوين تجي وحنو مقالة الدنيا المان حالي السيارة كدي من وحن ويك لويك كدي مقلي كدي سوماليا أي بروجة
tegay magaalo la yidhaahdo goco inuu tegay baan nagu maqaalo noqotay meelaan kala xiriirno iyo cidaan ula hadalana ma aanan garanayn kadibna waxaan maqalo un wuxuu galay xamar laakiin su-aashu waxay tahay messageka ama warka ay ku baxeen iyo fikradda ay ku baxeen xagay ka timi su-aasha ma iska taagan tahay waagana ku bixi xooga aan joognay saaxiibadiis telefoonadooda ma haysano iyo qofaan weydiiyo iskuulkaan aadnay iskuulka maxaa la dhihi college meesha uu dhiganayo saacadahan waxaa la galaasay ku jiraan hadhow soo noqo ayaa meesha joogi ugu dhahin waa iska soo noqonay marka gabaraa 9 saac maray ahayd waxaa iigu tiri waxay tiri abaa baasboorkiisa iska fiiri ord gabadh iigu dhahayso baasaboorka markaasaan baasaboorkiaan fiiriyay baasaboorka ma ku jiro meesha markaasaan dhahay walaali baasaboorka ma yaal meesha markaasaan orday waxaan riboodkii booliiskaan ortay booliiskaan u sheegay waxaan dhahay wiilaa iiga maqan goormaa kugu dambaysa ada riboodkii iiga qoreen waa soo noqday haddana magaaladii aan maqlaa wiilalaa baxeen gabdho oo ku sheekeysanaya marka sidaa waxaad dareemi kartaa marka horeeto oo qayb ka mid ah islaamku wuxuu leeyahay nabigu noo islaamaya alayhi salaam qofka dadka muslimiintu waa jismi waaxid yani waa hal jir oo kale keliya marka hooyo la soo qaxday ilmahaadi oo inta la timid oo wiilkeedii oo ama 19 sano jira ama 12 sano jira ama 20 jir oo kolley jaamacad dhiganayay subaxii dambe weyday marka dambe loo sheegay wiilkaaga uu dhintay ama uu isqaxiyay warar si doon wax loo dhigay waxaad dareemaysaa culayska iyo xanuunka arrintaas ay leedahay marka waa qayb ka mid ah community xanuun aad u fara badan xaqiiqatan oo waalidkaas soo gaaray waan geeri labaad nagu noqotay hadda intaa dadkaan la soo maray waa kuu sheegay oo dawladdu gacanta noo fidisay oo dal nabadana keentay oo danahayagii oo dhan aanu ku gaarnay yaa qolada naga dhex bixiso oo naga xaday oo masaajidyadii iyo jaamacadihii kala carabtay carruurtii intii u wanaagsaneyd iyo intii annagoo rawo weyn iyo mujtamacayada inay caawinto naftayada caawinto aanu rabnay qolada kala dhex baxday waxay calool xumo bilow aadan oo dhan waxaan ku qaban baa kaliga iyo mise bilow aadan kii wax garanayo oo dhan bay ku qabanaysa habeenkii baa la sheekaysan jiray wiilka fresh runta furus baa haystay waxbaa khaldan baa oo cunugayga waxaan siibu ma aragtay gurigii waa ka tirtirmay oo guriga joogistiisa waa ku yar tahay waxbaa khaldan gabdhihii labadii dumar waxay u dheheen waa nasiib badan tahay ilaahay bashiir buu siiyey wuxuu kugu xeetay masjidkii abubakar culimadii buu kamid yahay ejkaas muxaadaro ku akrinaya ejkaas qur-aan ku xafiday adiga haddaan nahay dharka hataa ku bedelay meeshaa lagu geynayo bedelka waxaan ka hadlaya yani cuntada inuu cuni waayo inuu isku buuqsanaado qof fikiraayo oo meel laga haysto oo kale maalinaan weydiiyey waxaan leeyahay hooyo cuntada maa cuntid adiga jiim oo aadi jiray sheekada waxaan ku keenaa hooyo jiimka abaalihaan ma aadin maxaa kuugu dhacay markaasuu hooyo ma imtixaankayga badan wax mashaakil ah ma jiraan inta sidaas uu iigu joogaa anaga waxaan nahay Soomaali America muslimiin baan Soomaali wadanka ku nool baan nahay wadanka waa kaanagi way laakiin dadkii marka aan wada noolayn hadii marka khalkhal la geliya xiriirkii oo marka dadka ay ku arkaan oo wallahi community-gan waa la soo dhaweeyay waa la ixtiraamay laakiin meeshii laga rabo inuu wax noo soo celiyo dhib uu noo keenaya marka waxaad moodaa calaaqadiina in xoogaa damage uu soo gaaray oo qofka Soomaaliga ah meelaha qaar hadda marka artay community-ga si shay loogu furfurnaa ama loo soo dhaweynayay in maanta xoogaa ayna sidii ahayn sidii ariga loo dirayaa dad ilmahooda weliba waxay ka ugaartaan sida u yihiin xoor u yihiin ilaahay naarta idinka hor asfala saafin ilaahay idinkee waxay ka ugaartaan dadka ducafada maar sida waagooleyda oo kaleetay naagay sida yihiin ninkeeda ma joogo masaajidka marka wiilkayga maskaxda laga xaday kaasma aqoonin Soomaali meel ay ku taal hal sano soo jiraan kasoo kaxeeya qofka haddii dhahaysid asigaa baxay iskiisa ku baxay inuu meesha yaqaan Soomaali meesha Soomaali asigoo yaraa kasoo kaxeeya hal sano jiro siduu ku aadaa marka waxaa cad in cunkeyga maskaxda laga bedelo ma la faray ma waxa qofka la sheegaa lagu sameeyey dad baan hadda ka maqlaayay waa la salaama carruurta waa la hoggaansadaa ma garanayo wax lagu sameeyey maxamuud waxa lagu sameeyey misaalana anaa u baahday isagu korriimadiisii waa usoo dhammaatay
daktar kasto i geynayo gacanta ay qabanayda daktar waliba ilaa meeya wiilkaadi mee wiilka maxamuud xasan mee taqaadiirtu madaxay qabataa markaa maxamuud xasan baraa wadatay waa la sabto xabar baa laga haddaan aniga cunugii aan arki lahaa asoo wax kasta ka sheekeynayo dagaal iyo caabinaad iyo markaas waa ku qiyaasi lahaa cunugan inuu iskiisa u baxay weligay asoo xataa ma arkin news fiirsanayo gurigeenan ma aan maba ka sheekeynayn soomaali meelay ku taal waxa ka socod asi iska dhaaf anima aqoonin waxa ku dagaalamayo anigoo dhalay meelay marayso markaan kasoo tegaya igu dambeysay soomaali magaalada xaq weeye waa la dhimanayo dadka lagii oo dhanna waa ku dhammaadeen horaday xamar ugu dhammaadeen iyo dhulkaas oo naweyne ay naga soo bixiye dowladda gacanta noo fidisay baanu ku nimid wada wiilkii anigu aan leeyahay meesha oo inta u heshanayay dadkaygii lama xisaabi karo dhibaatada iga soo gaartay ilaahay baanu sheegto wax adana wax ka qaban karana ma anaga hadda kuwii haranoo la qoryo barkadaan oo qoriga oo hadday seexanayaan qoribaa barkanaya meesha kugoodi jaacdaa u dhigtay baad bagay watasaa kasii dhargeen oo ilmahooda maartay qortanayn yani kuwa dhaqawsanaya waala nagu maartay beerkayagu ishaysan geeridiisa waxaa ku muuqday aabihiisa oo fadhiyo combyuutarka oo ka ah markaasaa marka wuxuu igu yiri kaale fiiri muu ag sawirkiisa ma aho wiilkeen markaa meydka ah marka sidiyaa markaan fiirina sidii dana isla markaasaa waxaa imaadeen cayaal badan oo masaajidka friends iyo iskuul ku haayo oo soo arkay sidiyaa marka aan ku ogaanay Pakistan waa yiraahdeen markii hore dadku saas ay yiraahdeen ilaahay baa sii bashiir ilaahay loo sii ilaahay baa ka baryaa ilaahay uu qalbi ka furtay sababtay tamarkii guriga xubka haystay uu yiraahdo dareen iska yaala wala ka carray wasakara waa baray ma kici karo dawama xabadi yani waa iska garanaysa wala ana hawada sabxan garayaan xataa baawada u jeedi jiray ilaa ma dhaarto saas taga baro isku qoyay marka ruuxu wuxuu u rabtay laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryaa maaragtay أنا وبابا إسكت دور إلى سهر أنا دور يحسع ناس كل يوم أنا ثلاثة أسبوع واحد في واحد محمد حسن وعد ما مغش يا سوسوي تبرك ويلك يا سوسوي ودي ما وعي ودي ما واحد كذي ويلك هو مقيا خدي وكذا ويلك يا سوسوي محمود شباب البري والجماعة وصنفي الله نحرسته وسيادة بلي والكاسين بس الناس تنبغوا عنه والله وحشية وحالة وقروا kaliya waxaa noo soo sheegay inaad u shaqaysaa New York Post dollar kaliya ku loo tacaawin oo kala oo sheegtay maskariga oo fiirsay waxaa wada qornay noo sheego wada joognay wax nagu cusub ugu dhaway nagu ahay ina yaro laga kala Soomaaliya Mareykanka ay mid ah kaga baranayay dib ugu noqday meesha laga soo qaxiyay isagoo ugu yeedhan nimanka horta markii hore intaan waxaan la diyaarin bulshadeena inta badan waxaan ku nooleen denial oo waxaan leeyahay wadnaba dhicinba laakiin ilaa aan aragno hooyooyinka ay ku dhaceen oo si xun ay u taabteen inay yihiin kuwa naqaano
taasna waxay noo sahashay inaan si saxa uga hadli karno waalidiinteena qaarkood ay si saxa si openly uga hadlaan si ay waalidka kale cashir ugu noqoto marka muhiimadda ugu weynba waxay ahayd kaliya in waalidkan dhibka ku dhacay dhibanaha ah uu taariikhdiisa uu soo maray uga sheekeeyo waalidiinta kale adduunka ku nool si ay cashir ugu noqoto ilmahooda uga warqabaan. Bogga internetka ee hay'adda socdaalka Migrationsverket EBID.se waxaa ka ballansan kartaa waqtiga intee adaan oo soo bogan ka hor waa arrintaas waxaa nim ee maanta suubinayso. Nim waxay waqti ballansan kartaa markay codeensaga baasaboorka dadka shahayaha ama dokumentiga safarka. Soo doonaysaga baasaboorka dadka shahayaha ama dokumentiga safarka. Faraha la qaadayo iyo la sawirka la suubinayo markii kaarka oo tusina internet degan tahay. Ama hodaanshaha oo fiiso boogashaha. Haddee nim u baahan tahay wax kalena lala caawiyo inay soo wacdo waayo ama email u soo dirto waa hay'adda socdaalka. Migrationsverket EBID.se nim waxay dooran kartaa magaalada rabta inay aado iyo arrinta rabtana lala caawiyo. nin waxay dalban kartaa intay qof ay rabto inay balin u suubiso. Hadday rabto dad badan inay balin u suubiso waxaa loo suubinaa dadkaas si ay u helaan waqtiyaashooda hal mar intay u baahnaan dad inay ku sugaan. nin waxay dalban kartaa waqtiga kombaanka ayaada marka ay balinsanta iyo rabto ay doorato waxaa loo soo diraa email. Emailkaas oo loo soo diraayo waxaa ku qoran lambarka balanta iyo saa nim suubinaysa hadday imaan karin. Markay inta imaado maxaa ku qoranba hay'adda socdaalka waxay ku suubinayso. Markay nim imaado hay'adda socdaalka waxay u baahan tahay inay haysato lambarka balanta, lambarka arrinta, kaarka tusnaa qofkee tahay iyo inay foomyaasha soo buuxiso.